boqoloo waxa iska leh oo degan oo la og yahay oo ummadaha aad u sheegaysaan warka ay og yihiin ummadaha warka aad u sheegaysaan hadday Puntland tahay hadday Galmudug tahay waxay og yihiin dadka deegaankaas degan bay og yihiin oo deganaa bay og yihiin oo dhibaatada looga kiciyay og yihiin waxaan leenahay faraha dulmiga ka laabta dad baa dhintay wayna dhiman doonaan haddii wanaag la waayo dad baa dhintay wayna dhiman doonaan ma ahan dadka dhintay waqti bay leeyihiin wayna dhimanayaan hadda kadibna dad badan baa dhiman doona haddii wanaag la waayo niman kale magacyo kale iyo sumadaha bixinaya hebel weeye qof walba oo aad taqaaniin gurigiisa meesha ku yaalo oo aad ku jirtaan gurigiisa guriyaha dad kale u baneeya oo dadka wanaag u sheega aad xumaanta u sheegaysaan xumaan baa faafiseen wanaag faafiye bedelaan idin leena nimanka tawfiiq degan iyo nimanka buqda degan waa walaalo waa daris waa ehel laakiin xumaanta waxa hoggaanka u haya nimanka ka hadlay meediyaha ka hadlay waxaan leenahay meesta idaacada la yiraahdo jirna ha ka weecato waxa aysan wanaag aan ahayn ha ka weecato oo ay la shaqeyn mooryaan iyo dad si xun u turjumaya wanaaga dadka meesha laga adunku waxa tiin wanaagii dadka laakiin xumaan niman faafiya noqon safety la yiri xumaantana way u jartaa samaantana way u jartaa waxa ka jira colaad laba qabiil oo daris ah oo la yiraahdo dir iyo sheekhaal baa xoogaa ayaantan colaadi ka dhaxaysay colaadaas in badan baa la isku dayay in la xaliyo duruufo jira awgood wali lama gaarin meesha ay ku soo intoobi lahaayeen maamulada Galmudug iyo Puntland waqti bay geliyeen labada madaxweyne Dani iyo Qoorqoor labaduba waqti bay geliyeen aad bay u dadaaleen waa uga mahadcelinaynaa ilaahay israfa ka gaarto iyo mahadi inta kadib labada waxa isku yimid dhaqanka salaadiinta odayaasha arintaas wax badan baa la soo jiiday wax badan baa laga wada hadlay qodobo tiro badan baa la isla gaaray qodobadaas la isla gaaray waxa kamid ah oo door u ahaa hal ku dhig u ahaa oo saldhig u ahaa meesha la yiraahdo boqoloo waxa deganeed sheekhaal waxay ahayd hoygii nabadda waxa lagu qabtay dir iyo sacad nabadeyntoodii baa lagu qabtay gogol nabadeed baa la dhigay waa lagu guuleystay ilaahay shukrigiis ilaahay baan mahadaas u celinaynaa mar labaad waxa gogosha loo dhigay nimanka la yiraahdo sheekhaal iyo dir gogoshaas waxba door shariif ah laga gaaray muddo dheer baa hawshaas la soo waday hadba waa zabaan colaadeed hadba waxba sidbanahayay hadba dhinac baa wax ka dhacayeen dhinacyada labada dhinac oo iska soo horjeeda niman baa maalin waxay ku hadleen meeshaas waxa ka dhacay niman baa xabad joojintii jabiyay xabadii la joojiyay niman baa jabiyay ma jabin niman gaari waxa jabiyay Maleesiyo aan qolana taqaana tala la wadaagin ayaga waxa ka yimid maalinta hadda wixii hore markii laga soo laabto waxa dhacday boqoloo oo ay ka qabsadeen sheekhaal bay inta ka soo duuleen bay waxay tageen meel la yiraahdo qoryo weyn oo sheekhaal saldhigeedii ah dagaal baa ka dhacay naf iyo maalba waxba ku gaaray ilaahay shukrigiis waa la isaga yimid waxba la isaga ogaa dhacdadaas meel baan ku dabarnay nasiib darro habeen dhaweyd waxa dhacay dagaal kale ma oranayno meel kale ku aadin mayno waxa sabab u ahaa nimankii boqoloo deganaa sabab u ahaa in dagaalkaasi dhaco nimanka meeshaas ku dhintay ama ku dhaawacmay inaan guri ku lahayn kuma jiro inaan ilmihiisa qoraxda joogna kuma jiro marka waxaan leenahay waxa colaadaas sabab u ah oo ay la fariisan laadahay oo nimanka guryahaas lahaa ay marna la kan laayiin gurigoodii baa niman aan lahayn ku jira waa dulmigaas waxaan leenahay hal la joojiyo nimanka wadaha ka bixeen dulmigaas ha joojiyeen waxa dulmi ah hanti aadan lahayn inaad gacanta ku haysid oo aan raali lagaaga ahayn oo qofkii lahaa uu banaanka taagan yahay aad leedahay waa heshiinayna heshiiskaasi sax maahan waxa heshiisku sax noqon kara markii dambigaaga waxa la dhaafaya oo qofka dambi dhaaf laga aqbala markuu waxa uu gacanta ku hayo uu dhulka dhigo oo yiraahdo war waxaagi waa kuwaan oo ilaahay toobad sax markaas ka aqbalaya
laakiin intaad ammaano aadan lahayn gacanta ku haysid hanti aadan lahayn gacanta ku haysid waxaa tahay daalimkana ilaahay uma gargaarayo waxaan leenahay dadka guryaha aysan lahayn ku jira oo boqolooc jooga ha ka baxeen dadka ay u sheegeen oo leeyahay waan la ku soo duuleen dad xog ogaala weeye guryaha boqolooc ha ka baxeen oo dadkan odayaasha ah oo ka hadlaya hawna isteexanaya wadada gurigiisa uga baxa wixii loo diray oo odayaasha ahaayeen oo ay nabadda uga qayb qaateen wada hadalka waxay uga qayb qaadanayeen fariintii ay qaadeen waxay ahayd inay baneeyaan guryahaas dadkii lahaa u baneeyaan marka ma ahan nin odaytinimo sheeganaya inuu colaad ku baaqo xaq uma lahan sharafna ma ahan nabadda qofka ka shaqeeya dab wuxuu la mid yahay nin biyo ku shubay inuu horiyo ma ahan dabka inay horinahayaan hadamiyeen biyaha ku shubeen biyo ku shubidda waxay noqonaysaa qofkaanu la yiraahdo war guriga oo dulmiga laga bixiyo culimada waxaan ka dhageysanay walaalka u gargaar oo u kaalmee oo waxaad ugu kaalmaysaa dulmiga hadduu wax dulminayo wasura khaka daalim oo madluum war hadduu wax dulminayo dulmiga ka qabo haddii la dulminayana dulmiga ka qabo oo yaan la dulminde war adinka waxaa idinka rabaa inaad dulmiga ilaahay hortii iyo xalaal inaad garataano tiraahdaa war dulmi baa halkan ku jira war gurigaa nin baa deganaa ninka hala keeno idin raaci mahayaan nimanka aad hadda israaciseen oo leedihiin hebel iyo hebel bay nala yihiin ma idin raacayaan waa godka 2 mitir ah dadkoo dhan sugayay waxaad yeeshaan xaqa tilmaama odayaal baa tihiin waxaa jira saddex nin baa jirta waxaa la yiraahdaa wadaad iyo wabar iyo walaaq baa la yiraahdaa saddexdaan nin wadaad iyo wabar xagga iska dhig shaqay iska leeyihiin walaaq waxaa la yiraahdaa walaaq baan rabnaa uga soconnaa walaaq waxaa la yiraahdaa ninka meesha wanaagga laga rabo inta ka weecda walaaqa xumaha walaaqa oo dadka dhexdiisa xumaha ku faafiya niman meeshaan maalin dhaweed ka hadlay oo odayaal ku ismanaa oo hadda ka hor anigu magacyadooda hadda gaar uma hayo hadda ka hor dadkii ka qayb qaadan jiray wada hadallada ku jiraan waxay walaaqeen xumaan bay walaaqeen magacyo aan meesha joogin bay bixiyeen waxaan leenahay walaaqnimada iska daaya oo walaaq baad noqoteen wanaagga ka shaqeeya oo ku bedasha wadaadnimo iyo wabarnimo ku bedasha ama nabadoonnimo sidaad u taqaanaan waxaad yeeshaan annagu waxaan leenahay nabad baa run naga ah oo nabaddu goorma imaanaysaa nin walba gurigiisii marka caqligu u ogolaado boqolooc waxaa iska leh oo degan oo la og yahay oo ummadaha aad u sheegaysaan warka ay og yihiin ummadaha warka aad u sheegaysaan hadday Puntland tahay hadday Galmudug tahay waxay og yihiin dadka deegaankaas degan bay og yihiin oo deganaa bay og yihiin oo dhibaatada looga kiciyay og yihiin waxaan leenahay faraha dulmiga ka laabta dad baa dhintay wayna dhiman doonaan haddii wanaag la waayo dad baa dhintay wayna dhiman doonaan ma ahan dadka dhintay waqti bay leeyihiin wayna dhimanayaan hadda kadibna dad badan baa dhiman doona haddii wanaag la waayo niman kale magacyo kale iyo sumadaha bixinaya hebel weeye qof walba oo aad taqaaniin gurigiisu meesha ku yaallo oo aad ku jirtaan gurigiisii guryaha dad kale u baneeya oo dadka wanaag u sheega aad xumaanta u sheegaysaan xumaan baa faafiseen wanaag faafiye bedelaan idin leenahay nimanka tawfiiq degan iyo nimanka buqda degan waa walaalo waa daris waa ahel laakiin xumaanta waxa hoggaanka u haya nimanka ka hadlay meediyaha ka hadlay waxaan leenahay meeshii idaacada la yiraahdo jirna ha ka weecato waxa aysan wanaag aan ahayn ha ka weecato oo la shaqayn mooryaan iyo dad si xun u turjumaya wanaagga dadka meesha laga adunku waxa tiin wanaagii dadka laakiin xumaan niman faafiya noqon safety la yiri xumaantana way u jartaa samaanta way u jartaa xumaanta ha u jarin dhinac wanaagga u jara oo nabadda ka shaqeeya nimanka dulmiga guryaha ku degan oo inta idin yimaada maalin walba meediyaha aad ka faafinaysaan war xumada war wanaagga faafiya xumaanta faafinina waa idinkaga nasteexaynayna hadalkaas kulmoonka ah oo qabaa'ilada dhexdooda dad aan ehel u ahayn ay ka sheegaan hadalkaasi ha faafinina wanaag faafiya bedela hadalkaas marka nimanka waxaa la yidhi munaafiqa saddex calaamo uu leeyahay saddex calaamo lagu yaqaanaa munaafiqa ninka la yidhaha munaafiq saddex calaamo lagu yaqaanaa hadduu hadlahayo been buu ka hadlaa waa wax la yaqaano been buu ku hadlaa haddii uu ma garanaysaa ila aaminana khayaamu sameeyaa oo khayaamu sameynaya marka
calaamadaha ay aan haynaa waxaa ka mid ah waa la ballan waxa la guryahan dadkii lahaa u baneeyay wali waxa la leeyahay wax ka jawaaba wali waa la leeyahay waxay ku hadlayaan markaad dhageystina waxaad arkaysaa dad ay nabaduba aysan ehel u ahayn inay yihiin nabadaba dad ehel u ahayn marka tilkal ayaam baa la yiraahdaa waxaan adduunka tilkal ayaam weeye leenahay ha laga shaqeeyo wanaag oo dadka ehelka u ah wanaagu ha yimaadeen meelahan oo kale meelaha munaasabka dadka ehelka wanaaga ha yimaadeen haday runtahay nabadu yaan loo soo dirin dadka nabada uleynaya reer nabad uleeyay yaan loo soo dirin dadka nabada ehelka waa loo soo diro aad baa idin salaam